12 Oktoobar waa maalin taariikhi ah oo si weyn uga dhex muuqata maalmaha qaran ee Soomaaliya. Waana maalintii la asteeyay in la xuso calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, astaanta midaysan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Calankan buluuga ah ee leh xidigta cadda wuxuu ka tarjumayaa halgan dheer, rajo iyo himilo qaran. Calanka Soomaaliya waxaa naqshadeeyay halyeygii Soomaaliyeed Allah u naxariistay Maxamed Cawaale Liibaan sanadka markuu ahaa 1954. murugu Ingiriis markii ay Hargeysa maya tiriyeen. Markii uu naqshadeyntu ku guda jiray wuxuu doonayay in calanka noqdo mid si qoto dheer u muujinaya midnimada dadka Soomaaliyeed, nabadda iyo rajada mustaqbalka ifiya. Macnaha midabada iyo astaanta calanka ayaa ah buluuga wuxuu matalayaa badda cas iyo badweynta Hindiya, kuwaas oo Soomaaliya ay ku taalo dhexdeeda. Waxaa kale oo uu xambaarsan yahay calaamadda qaramada midoobay, taas oo door weyn ka qaadatay diyaarinta xornimada Soomaaliya. Xidigta cad ee shanta gees leh waxay astaan u tahay shanta dhul ee Soomaalidu ku nool yihiin: Soomaaliya, Somaliland, Soomaali Galbeed, Itoobiya, NFD Kenya iyo Djibouti. Markii ugu horeysay calanka la taagay taariikhdu markay ahayd 12 Oktoobar 1954 ayaa markii ugu horeysay calanka buluuga ah ee Soomaaliyeed laga taagay aqalka dowladda hoose Xamar oo loo yaqaan Vice Kuwerno, balse hadda ay tahay halka uu ku shaqeeyo maamulka gobolka Banaadir. Gaja iyo harahadan qalme dara hartan usoo dhibahatan mutay dolaha qosol maygo soo dhacay. Munaasabadaas ayaa ahayd mid si weyn loo xasuusto iyadoo ay goobjoog ahaayeen madax Soomaaliyeed iyo saraakiil Talyaani ah oo waqtigaas dalka maamulayay. maanta oo kale 12 Oktoobar ayaa loo aqoonsaday maalinta calanka Soomaaliyeed. samagii wakaaya xidiga mid la siiyayo saaxirkii kala guuray sareeyo manusqama aan siduu yahay eegno